madal farxadeed oo wejiyada goobjoogayaasha laga dheehanayay iftiinka iyo farxadda guul laga gaadhay allana fududeeyey in meesha laga riixo xaalad murugsan oo bukaan iyo xanuun sababay lana soo dhoweeyo caafimaad wata farxad iyo raynrayn ayaa waxaa lagu qabtay hotel dhoolayare ee magaalada Hargeysa. munaasibadan oo ahayd qada sharaf ayaa gundhigeedu ahaa ka mahadcelinta caruur yaryar oo wadnuhu daloolay misana xaalkooda caafimaad aad u liitay dalka gudihiisana waxba lagaga qaban kari waayey ha yeeshee muxsiniin Soomaaliyeed oo daafaha dunida ku kala sugan ay taageero iyo garab istaag ka geysteen sidii caruurta loo geyn lahaa dhakhtar dibadeed taasoo ugu dambeyntiina noqotay rajo rumowday oo alle guuleeyay qalniino wadnaha ah oo ay ku galeen dalka dibadiisa ay maantana dalka dib ugu soo noqdeen iyagoo caafimaad qaba. munaasibadan boqran ayaa waxa goobjoog u ahaa waalidiinta dhalay caruurta yaryar xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Berbera xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Sara Basbaas oo ka tirsan xukuumadda ahna agaasimaha daaweynta iyo daryeelka komishinka ka hortagga iyo la dagaalanka AIDS-ka Suxufi Maxamed Siciid Gaxnuug oo qayb lixaad ka qaatay baahinta caruurta yaryar ee wadnuhu daloolay garyaqaan ayaan le Maxamed Cige Cabdisalaan Ilka Case Dr. Ikran iyo waliba Dr. Maxamed Yuusuf Dhagaweyne oo isagu ah shakhsigii sida ugu ballaaran uga qayb qaatay garab istaaga caruurtan mataanaha ee wadnuhu daloolay waxaana hadallo ay madasha ka jeediyeen ay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha ay ka gaadheen xaajadii cuslayd allana u fududeeyay. waxa kale aan doonay halkan uga mahadnaqo dadkii gruubka ku jiray ee u ducaynayay haddii ducadaada la aqbalo ilaahay baa loo mahadnaqaa inana waynu ducaynaynay ilaahay baa ducadii naga aqbalay waynuna allow mahadnaqnaa oo aanaynu damaanshaad tuman ilaahay naga aqbalay ee soo siiyay caafimaadka ayaynu mahadnaqay mee Soomaaliya oo dhan arintani gaadhay marka siyaabo badan baa loo taageero dhaqaalaha lagu taageeray maxaa la dhahay waxa lagu kaalmiyay ducadii waxa lagu kaalmiyay hadii la idinkeeda leeyahay dhakhtarkii oo service-kii ugu badnaa aanu kharashba naga bixin marka laga bilaabo halka wixii ilaa iyo intii la geynay Egypt iyo Aswan oo 4 bilood muddo uu joogay maantana sida xildhibaanku sheegay horta mahadnaq baa noo furan mar haddii ciyaalkii maalintii xaaladooda nooca ahayd aan garanayo oo iyagoo airport-ka joogay oo si tiintii marka ka gooday kalarkooda isbedelay aan u gurmanay inay maanta iyagoo ciyaarayo caafimaad qaba ilaahayna hor keeno arrinkaas ma hadda alla ilaahay arrinkaas doo aad buu noogu xumaayo waxna aan ka qaban karo weyn dhibaatana weyn ugu hayd marka waxaan ku mahadinaynaa wixii ka soo shaqeeyay wixii u gargaarayba mahad weyn baan u soo jeedinaynaa kale wuxuu baa garanaya family-ga caruurtooda xanuunadan oo kale ku dhashaan ayaa garanaya 2011 baan anaga ilmiga maartay wadnaha xididda wadnaha soo gala laba xididoo wadnaha soo gala ay goonaayeen marka de Chinese-ka inankaasi haystay anigu aan dhalay iyo Chinese-ka ay labadan caruur haysteen baa kala duwanaa marka waalidka waan fahmayaa anigu de dhibka haystay oo waliba mataana ah kulay wixii inankaan u sheegi karay waan u sheegay marka kulay caruurtu ilaa still waa wali de waa xanuunku way de waa la soo daweeyay sida waxa wali doonayaan marka waynu u ducaynaynaa wali still caruurta waynu u ducaynaynaa in ilaahay xanuunka uu ka dul qaado doctorka waxaan leeyahay ilaahay ha ka siiyo adiga iyo intii cudud iyo cod iyo ducaba maxay ahayd tolay u geysatay waalidka la soo maray dhibaatada badan iyagana jazakallahu khayr wajazaa de waaba caruurtoodii ilaahay baa mahad leh maadaama maanta farxadda iyo jawiga aynu ku jirno oo aynu ubadkii maalintii hore siday ahaayeen ogeen maantana siday yihiin aynu ognahay ilaahay nagu sumay farxadooda iyo caafimaadkooda kullay markii ugu horeysay aanu ka qayb qaadanay baahinta maxamed aadan iyo waxa yimid Cabdisalaan Ilka Case oo markaa yiri waxaan doonaynaa caruur noocaas oo wadnuhu daloolo dalka wax laga qaban karin aad xaaladii markay sheegeen waxaan ku leeyahay bal horta aan soo arko aragga arkay wuxuu keenay in garanaysa aad aan uga naxo garanaysa qaabka garaaca wadnahoodu sameeyo oo qof garanaysa damir loo ka damqanayo maalintii baan soo qalab qaadanay anigii Mustafa Cabdi Xasan oo aan ugu talagalay in dhinaca kamarada igala shaqeeya
inaan barnaamijkii soo duubno barnaamijkii aan soo duubnay dad fara badan baa gacan ka geystay oo ku dhow ugu yaraan 150 qof baa ayaa sii gaarsiiyay oo gaaray muuqaalkii markii koobaad maxamed saragno waxay ahayd labadii bishii August 2019 halka adnaa horteeda aniga jooga ayaa cabsanaan ka cabsan saragnay si iga sheekeeyay ciyaal xaafadeena oo marxalad noocaas ku jira inay jiraan ninkaasina ay la dhibaataysan reerkuna bal ninka waxaan la qaban kareynaa inaan la qabanno waxa isaguna geestiisa madasha hadal ka jeediyay Dr. Maxamed Yuusuf Dhagaweyne waxaana uu yiri arrinkan aan qabtayna waa dardaaran waalidan qabay aabbahay wuxuu yiri waxa dad gashatay ugu muhiimsan marka taasana aniga iyo walaalada iyo aan hadii jeer ku dadaalaa ilaahay baan na waafajiyay inaan maxamed clip ka soo duubay anoo la joogo xaskiina hargeysa ku soo maqan tahay ciyaalkii laga tago qada karanayo man ayaan eegay Facebook galay markaan arkay markaasaan waalid markaa taana waa dareemi karaysaa caruurta xanuunkooda waxay ga daraa waalidiinta dhibka haysta baan garanayay waalidiinta dhalay caruurta oo madasha ka hadlay ayaa iyaguna waxay dareen farxadeed ka muujiyeen garab istaaga loo muujiyay waxaanay u mahadnaqeen una duceeyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay taageerana ka geysatay caruurtooda yaryar dhammaanba intiina halkan ka soo qayb gashay maanta munaasabaddan aynu ku ducaysanayno aynu ugu ducaynayno maxaan ku dhahay dadkii ka qayb qaatay sidii mataanaha yar xanuunsanayay loo geyn lahaa dhakhtar oo ugu horeeyo Dr. Maxamed Yuusuf Dhagaweyne iyo maxaan ku dhahay saxafiyiintii baahisay ee ugu horeeyaan TV-ga Badda Cas iyo TV-ga Star oo ay kala hogaaminayeen Maxamed Saciid Gaxnuug iyo Khalid Bakayle waxaan kaloo iyagana aan marnaba ilaaweynin maxaan ku dhahay dhaqaatiirtii intii aan halkan la tacaalaynay carruurta xanuunkooda aan garab ka helaynay aad baan u salaamaya bulshada isugu timi xafladan qiimaha badan leh alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta dareenkayga lama soo koobi karo maanta maalintii farash weyn baa u dhaxeeya marka maanta aad baan u faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin gabagabadii munaasabadana Sahra Basbaaso agaasimaha daaweynta iyo daryeelka ee komishinka la dagaalanka iyo koortaga AIDS-ka ayaa waxay shaada sharaf ku maamustay qaar kamid ah shakhsiyaadkii iyagu ka qayb qaatay garab istaaga caruurtan mataanaha ah ee wadnuhu daloolay waxaana kamid ahaa suxufi Maxamed Saciid Gaxnuug suxufi Khalid Bakayle oo isagu aan goobjoog ka ahayn madasha ha yeeshee loo gudoomay shahaadada garyaqaan ayaan le Maxamed Cige Dr. iyo waliba Dr. Maxamed Yuusuf Dhagaweyne waa Maxamed Andar telefishinka Badda Cas 24 Hargeysa.